السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا هبورد لهانتي بميل كستو جوجتان كنا سو دوادا وريسي gaaro la yeelano Dr. Maxamed Faarax gudoomiyaha akademiga nabadda iyo horumarka ee Soomaaliland waxaanu ka wareysan doonaa xiriirka ay Soomaaliland la leedahay wadamo ay ka mid yihiin Djibouti, Ethiopia, Taiwan iyo waliba Soomaaliya sidoo kalena inta wareysigan socdo xaaladda gobolka ayaynu ku eegi doonaa sababta aan u dooranay Dr. Maxamed Faaraxna waxa weeye in uu daraasadeeyo arrimaha gobolka iyo xiriirada ay Soomaaliland la leedahay wadamadaasi Dr. marka hore soo dhawow marka labaad bal waxaad si guud oo kooban aad warbixin nooga siisaa arrimaha geeska ka socday ugu waaweyn hadda bismillaahir rahmaanir rahiim Xasan Grade iyo Grade Media ba aad baan ugu mahadcelinayaa in aad igu marti qaadeen barnaamijkan waynu ognahayo taariikhda marka dib u raacdo ilaa laga soo bilaabo waqtigii gobonimada la qaatay ee wadamadan geeska Afrika ay gobonimada qaateen markii Ethiopia laga reebo dagaalada iyo mushkilaadka maartay bulshada sida maartay aafooyinka dabiiciga ah iyo abaaraha iyo waxay ahayd mid caan ku ah wadamadan deegaanaha gobolka waliba gaar ahaan in wadamada dhexdoodu ay dagaal ka dhex dhacaan iyaga wadamadu qaar kamid ah istilaan oo islaayaan oo dagaal ka sababaan oo maartay dad badan ay ku barakacaan marka gobolka marka caalamka la darsayo ama wadamada gaar ahaan Afrika la eegayo gobolka ugu khatarta badan leh dagaaladu kuna ay ku soo noqod badan yihiin oo gobolkan geeska Afrika ku noolahay marka waxaan ku noolahay meel aan marka horeba aan deganaansho uu ku yahay isbedelka siyaasadeed uu maaragtay uu yahay mid aan si nabdoon u dhicin dimuqraadiyadu ay ku yartahay marka dinka gobolka ba eegto wadanka kaliya ee dimuqraadi wax loo doortay doorashooyin ka dhacaan maaragtay awooduhu ay isbedelaan madaxweynayaasha isbedelaan dawlad dalkan ku noolahay Soomaaliland marka waxay ku tusaysaa in gobolkan uu yahay gobol aad iyo aad khilaaf ugu badan yahay mushkilaadkuna ay ugu fara badan yihiin Kenya marka la xisaabinayo iyagu wax la yiraahdo Greater Horn of Africa oo ah ma soo gasho wadamada geeska Afrika waxa la isku yiraahdo waa Djibouti waxa weeyaan Soomaaliya Somaliland Ethiopia intaas ah hadda geeska Afrika intaas hadda la isku yiraahdaa iyo xaggan badana marka waxa soo galaysa Red Sea badda cas iyo Gulf of Aden iyo ayagana soo galayso iyaguna muhiim ah oo badda iyo bariga labadiba muhiim tahay taasina geeska Afrika muhiim bay leedahay oo muhiimadda dunida ay geeska Afrika u leedahay waxa siinaya halka ku taalay iyo badda marta ayaa siinayso oo ay kamid tahay Gulf of Aden ama gacanka Carbeed iyo badda cas oo labadaas inay ku xirayaan meesha la yiraahdo Bab al-Mandab waa meesha ganacsiga adduunku ugu badan dunida uu maro marka Bab al-Mandabna waxay muhiim u tahay Suez Canalka marka Suez Canalku wuxuu u dhow yahay Bab al-Mandabna waa afaafka ganacsiga adduunka ee wadamada Asia iyo Europe iyo Mareykan isku xira marka meeshani waa meel aad iyo dunidu ay u danayso waana sababta aad u arkayso in China joogo oo Mareykan joogo oo Europe joogto oo Japan joogto oo Germany joogto oo ay noqotay military bases macnaheedu joogitaanka militariga ee geesku uu noqday meel militariyadu ay wadamadaas inagana waxaan arkaynaaba in Imaaraadku uu ka fikirayay in Soomaaliland ku yeesho military base Berbera in Mareykanku imika doonayo ay maaragtay ku soo biirayaan marka meeshani waa meel caalamku ilaashanayo laakiin si dadka ku nool iyo dawladaha ka jiraana ay runtii yihiin qaar la nool khilaaf iyo mushkilaad fara badan marka waxaan ku noolay gobol aad u xasaasiyo waqtigan aynu joogno waliba aad u si xasaasiyo haddaynu ku bilowno wadamada ay Soomaaliland xiriirka la leedahay waxa ku jira Djibouti iyo Soomaaliland hadda xiriirkoodu waa sidee Djibouti hadda waa dal runtii dal Soomaaliyeed ah oo aad u muhiim ah oo gobolkan ku noolahay saameyn weyn ku leh oo maaragtay aad looga ixtiraamo xagga dhaqaalaha marka eegto iyo xagga siyaasadda iyo xagga arrimaha dibadda saameyn culus ku leh sida wadamada reer galbeedku iyo wadamada iyo dalka China ba uu arkay geeska marka Djibouti runtii waa meel aad iyo aad u muhiim ah oo regionka muhiim u ah haddaad eegto cilaaqaadka Djibouti iyo Somaliland aad buu dheeri laakiin si haddana dhaqaalaha ka eegno isku xirka dhaqaalaha ee Djibouti iyo Somaliland marka loo eego Ethiopia aad buu yiri wax lagu qiyaasay daraasadaan sameynay 3% in isku xirka dhaqaalaha Somaliland iyo Ethiopia Somaliland iyo Djibouti ay tahay halka waynu iman doonaaye 7% waxaan jeedaa 5% ay tahay dhaqaalaha Somaliland iyo Ethiopia isku xidhan marka inagu dhaqaalaheenu xagga isku socodka ganacsiga wax isu iibsiga wax dhoofinta maaragtay waxaan aad ugu xidhan Ethiopia aad ugu xidhan Soomaaliya waa 2% Djibouti waa 3% halka Ethiopia 95%
marka boqolkiiba 95 baa dhaqaalihiin Ethiopia ku xidhay boqolkiiba 2 waa Soomaaliya boqolkiiba 3 waa Djibouti laakiinse Djibouti dadkeena waa isku xidhan oo dadkii waa isku dad dalal ha kala ahaadaan laakiinse waa isku dad siyaasadaha wali u kala aragti duunada marna siyaasadu way isku soo dhacaan oo danihii baa midooba marna danaha kala taga laakiinse waqti xaadirka imka ku nool su'aashaadi weydiisay danta regionka Djibouti iyo Somaliland waa mid aan u arkay arinta dhaqaalaha aad soo hadal qaaday miyaan la oran karin Somaliland iyo Djibouti tartan baa ka dhaxayn kara maadaama dekada berbera oo DP World ay maalgelinayso arrimahaas dekadaha wada waxay ka midaysan yihiin ay isku aragtida ka yihiin ay isku danta ka yihiin iyo waxay ku tartamaan waxay ka midaysan baa badan midna kale xagga amniga way ka midaysan oo dalkan iyo gobolkan ku nool lahayd argagixisada badan baa jirta marka inay iska kaashadaan in xuduudaha la iska waraysto in waxyaabaha intelligence-ga ama waxyaabaha sirdoonka oo kale iyo wararka la isweydaarsado marka arinta amnigu waa muhiim oo arin aynu ku wada midaysanay inaynu wixii cadow regionka cadawku ama gobolkan cadawku ah in la iska difaaco waxa kale oo ka midaysanay xaqii waxaan u jeedaa xagga dhaqaalahana dhinaca wada iskaga xidhanay waxaynu kaleenu xaqii bulshada isku xidhbaynu leenahay oo dadka reer Djibouti halkan bay imaadaan inagu xaqaas aynu tagnaa waa dalkeena labaad laakiinse waxa muhiim ah oo shacabka aan maanta u sheegaya iyo dadka kale dirsaba arimahan xiriirka Soomaaliya iyo Djibouti waxa aad u qoto dheer runtii muddooyin badan soo qaatay siyaabo badan marna u hooseeyay oo waa la isku kacsanaa oo waa siyaasaddu ma fiicneen marna aad baa la isku wanaagsanaa nidaamyadii kala duwan iyo madaxweynayaashii kala duwan Soomaaliland soo marayna aragtiyooyin kala duwan bay ka lahaayeen Djibouti halka aragtida Djibouti ay markastaba ay iyadu ahayd mid toos oo aan isbedel badan aan ku iman taana waxa keenaya dawladdu maadaama ay inta badan aan isbedelin taasa keenaysa marka imika dhaqaalaheena marka aad eegto baanankeenu inagu baanan la ictiraafsayo caalamka ku jira baaha marka systemkii ama nidaamkii dunida ee lacagta kuma dhex jirno marka waxaanu marnaa baanankeenu dhani waxa base-koodu ama xaruntoodu waa Djibouti halkaas lacagta laga dira halkaas la mariyo marka baanankeenu Djibouti bay joogaan laba telecomiska ama telefoonada ku hadallo ama shirkadaha isgaarsiintuna base-koodu waa Djibouti oo Djibouti bay ka soo qaata saddex internet-kan isticmaalna Djibouti buu ka imaadaa marka Djibouti waxa weeyaan waad garan karaysaa wadan xajmiga dhaqaalaheena isdhexgalkeedu yahay sidoo xiriirku noqonayo marka meelo badanna waynu way iska kaashana meelahaynu ku tartaneen ku kala aragti duwanayna waxa kamid ah aqoonsiga Soomaaliland ay doonayso bulshada caalamka ka doonayso waxa kamid ah dekadaha oo Djibouti marka imika eegto inkastoo inagu Djibouti la tartami karin marka eegto reportkii u dambeeyay ee ay soo saartay Africa qaybta hay'adda maasha la yiraahdo company-ga la Africa Ports Index uu soo saaray dekadaha dunida markii la qiimeeyay dekada Djibouti waxay ku jirtaa kaalinta 6aad dunida oo dhan gaar ahaan waliba Africa marka la eego halka Somaliland ama Berbera ay ku joogto 144 kaalinta 144aad Muqdisho waxay ku jirtaa kaalinta 245 iyo dheeraad 50 meelahaas ay ku jirtaa marka Djibouti iyo Berbera inta kala horeeyaan 6 iyo 144 garanaysa marka muddeena u qaadanaysa in la tartami karno gaari karno oo suuqa Ethiopia aad ka u balaaranay isaguna u baahan dekadaha badan aynu kula tartami karno laakiin si haddana tartankaas uu jira waxa kale oo imka tartanka ku soo biiray in wadamo badan oo Mareykanku kamid yahay oo siyaasadda ama Djibouti ha noqoto ama xiriirka China iyo Djibouti ka dhaxeeya ha noqotee doonayay inay soo digirogtaan Somaliland oo kamid tahay Imaaraadku kamid yahay oo military base iyo dekad bay investment sameeyay ay kamid tahay Mareykanku kamid yahay marka wadamada reer galbeedka ah hadii ay u arkaan in China uu ku noqonayo xoog iyo saameyn weyn Djibouti ku yeelanayo aakhirka waxa laga yaabaa in halkan Somaliland iyo Israel waa tartan caafimaad qabo ayaan u arkaya waan labada dhinacna iska kaashadaan arintaas dhaqaalaha ahayd dhinaca diblomaasiyadda waxa madaxweynaha Somaliland iminka Muuse Biixi Cabdi jooga hadaynu tirno waxa laga yaabaa inuu tiro ku dhow 110 jeer oo booqday intuu xilka hayay Djibouti madaxweynaha Djibouti in weligii ma iman Somaliland halka bedelkeeda uu dhowr goor tagay magaalada Muqdisho arrimaha diblomaasiyadda waxaad moodaa Soomaha in gaabis weyn uu ku jiro dhinaca Somaliland ee Djibouti wallahi waxaan ugu arkayaa in arrimaha diblomaasiyaddu maalin ay ka wanaagsan tahay inaan jirin oo xiriirka u dhaxeeya Somaliland iyo Djibouti aad u wanaagsan muhiim ma aha inuu madaxweyne dalkeena wali lama aqoonsan waa xaqiiqtaas wali na inoomu iman ama Djibouti ha noqoto
ama Ethiopia ha noqoto ama wadamada kale ha noqotee wadan cid madaxweyne keedna weli inoomayma inagu waynu tagnaa aad baa lanugu soo dhaweeyaa waa lanugu maamusaa laakiinse inaga weli caalamkii weli kumayna beerin marka taasi way iska iman doontaa wax lagu xujiyeyna maaha maaragtay uma arkayo in lagu xujiyin karo Djibouti oo kale keligeed wax xujiyin oo keliya la soo qaadan karin because wadamadii kale oo dhan baa ka siman laakiinse xiriirku waa xiriirka ganacsi xiriirka isdhexgalka xiriirka siyaasadana aragtiyadana waa lagu kala duway marka waxaan u arkayaa in isfaham weyn oo aan kii hore ahayn oo labadii xukuumood ay u dambeeyay iyo xukuumadii ka horeysay ilaa waqtigiina ayaa laga soo bilaabay ilaa imika uu jiray runtii marka aragtiyuhu hay isbedelaan laakiinse dooda iyo maaragtay danuhu runtii inta badan ismay bedeleen arinta kale aad soo qaaday Soomaaliland xiriirka la leedahay wadanka Ethiopia oo saad sheegtay iskaashiga gaar ahaan dhinaca dhaqaaluhu inta ugu badan wadanka uu dhex maray uu yahay Ethiopia iyo Soomaaliland balimka xilligan iyana falanqeeya هذا وقت adag baa Ethiopia Soomaaliland taariikhda markii ugu soo kordhex maray markii Abiy Ahmed qabsaday xagga Soomaaliyana farmaajo haystay kadibna uu sameysmay alliance ama wixii la oran jiray saddexdii wadan ee aad ka wada shaqeyn jiray isbahaysiga samaystay isbahaysiga geeska Afrika samaystay Soomaaliya Ethiopia waqtigaasi Soomaaliland iyo Djibouti ba runtii ciriiri baa la geliyay oo ciriiri bay galeen alliance macnaheedu isbahaysigaana ku bay jirin qaybna kama yahayn siyaasadaha isbahaysiga ku shaqeynayeen wuxuu ku focus gareysnaa Djibouti Soomaaliland iyo gaar ahaan dadka Muqdisho dega marka oo iyaduna siyaasad adag ka dhex socotay marka waqtigii mucaaradka Xasan Sheekh ay ahaayeen iyo madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo marka isbahaysigaasi waa ka imika dhalay inay isbahaystaan oo runtii ay wada shaqeeyaan Djibouti Soomaaliland iyo Soomaaliya isbahaysigaasi waa ka soo horjeeda marka ka 2019 shaqeynayay laakiinse marnaba xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliland hoos mu dhacay waqti kastaba maanta kasta bay soo kordhayay safaaradda Soomaaliland ay ku leeyihiin waxay ku sameeyeen tatawur bay ku sameeyeen maanta kasta bay soo kordhayeen dadka loo soo magacaaba safiiray ahaayeen wadamo kale ka soo shaqeeyay Soomaaliland saasoo kale calanka Soomaaliland iyo safaaradda Soomaaliland weligeed marnaba lama maartay xuduudka lama xidhin marka waa in la fahmaa aragtidu way kala duwanaan kartaa laakiinse danaha Ethiopia Soomaaliland wadaagaan waa mid aan la taaban karin Hargeysana way ogtay Addis Ababa way ogtay danahana waxa kamid ah kow xuduudka ilaa 850 kilomitir bay wadaagnaa Ethiopia iyo Soomaaliland wadamadan aynu ka sheekayna geeska Afrika seen hore u sheegnayna waa wadamo la tacaalaya argagixiso iyo maartay fakhri iyo maartay migration ko dadku iyo haajiraya oo maartay marka isku xirka xagga amnigu markasta oo muhiim ah dawladihii xataa ka horeeyay waqtigii TPLF ay haystay Ethiopia haystay xiriirka Soomaaliland iyo wuxuu ahaa iyo Ethiopia mid xooggan marka taasi ismay bedel uma arkay in isbedelayso laakiin waxaan arkay in si xoogaysanayso laba qodob baan si xoojinay kow siyaasadda arrimaha gudaha Ethiopia ma ka socota oo la doonayo kow in laga dhigo hubka liyo booliska oo kale oo inaga xaggeena soo xiga taasi waxay keeni doontaa mustaqbalka in isku xir weyn keento xagga Soomaaliland iyo Ethiopia oo maartay hadii ay cabasho jirtay ama aragti kala duwan ay jirtay kilka shanaad iyo Soomaaliland oo kale hadii hubka dhiga saas timaado in Ethiopia ay culays saari doonto kilka shanaad haddii culayskaasi ku yimaado siyaasadeed iyo mid amni ku yimaadana ay Soomaaliland noqon doonto mid markasta Ethiopia marka Soomaaliland waa mid ay Ethiopia marnaba aan ka maarmi karin laba qodobka labaad ee kale uga maarmi karo hadii Ethiopia ay banayso Soomaaliland cida looga baqasho qaba inay soo gasho waa masaarida oo iyaguna aad u danaynayso Soomaaliland marka Soomaaliland waxay adeegsanaysaa kaar aad u cajiib oo aanay wadamada kale geeska aanay haysan oo ah hadii Ethiopia ay dareento inay hoos Soomaaliland u dhigayso kii masaarida ay ciyaarsiiso labadan la isma tusi karayo marka kaararka Soomaaliland haysta waa kaarar ay ku loolami karayso isla markaana siyaasadda geeska Afrikana ay ku dhaxgalayso danaheedina ay kaga fushin karayso marka anigu ma arkayo xagga dhaqaalaha tadeegto waan iga sheegay aan ku wari 195 lacag ahaan marka loo bedelo 195 inta time garanaysa xasano waa 850 milyan sanadkii laba wadan oo 850 milyan oo ganacsiga leh xiriirkooda amni iyo kooda siyaasadeed marna ma xumaan karayo oo markastaba ganacsigii baa ka weyn waxa inaga inooga taga iyo waxa inaga inooga imaada intaba marka inaguna waan ku tiirsanay inaguna inta in ka badan baynu ka helnaa iyaguna inta in ka badan baynu naga helaa marka labada dawladoodna interest-ka dalka iyo dadkooda ilaalinaya marka uma malaynayo horena uma dhicin uma malaynayo dhacayso in marnaba ay isku xumaadaan talaakiinse muhiimka ah ee shacbiga la wadaagna waxa weeyaan aragtiyooyinka isbedelaya Hargeysa iyo Muqdisho Soomaaliya taas aad u muhiim
waxaad arrintaas bad kusii haystaa waxaad soo hadal qaatay in iskaashi uu dhex maray oo ay xulufo samaysteen Soomaaliya, Somaliland iyo Djibouti. xulufadaas goormay samaysteen maxayse ujeedadoodu tahay? xulufadaasi waa xulufo uu sameeyay baan ugu oran karayaa madaxweynihii hore Soomaaliya oo cadaadis weyn iyo dagaal weyn ku qaaday Djibouti, Somaliland iyo madaxdii markaa xukunka doonaysay Xasan Sheekh ee kamid ka ahaayeen Soomaaliya. taasaa sababtay oo dhalisay inay saddexdan wadanba ay dareemaan inay khatar isbahaysigii ka horreeyay ka inay khatar ku yihiin oo tusaale ahaan oo kale Farmaajo wuxuu aad u taageeray Eritrea taasoo carab badan gelisay Djibouti. Farmaajo wuxuu aad ula macaamilay Ethiopia taasoo Somaliland iyadana runtii carab gelisay. Farmaajo haddana waxaa kale oo cadaadis siyaasadeed oo aad u weyn oo aan hore la arag uu saaray dadkii lahaa Muqdisho reer Muqdisho. taasina iyaduna siyaasiyiintii reer Muqdisho ee imika xukunka haya iyaduna carab gelisay. taasi waxay midaysay danihii dadkaan ka hadlay oo markii hore aan midaysneen. markaan waxaan oran karayaa alliance-ga waxa ka shaqeeyay oo runtii sameeyay ninkii madaxweynaha ka ahaa markaa Soomaaliya oo aan isagu si istiraatiijiga wax faa'iido oo weyn aan igu jirin waqtiga in dagaalaadka la galo wadamada aan ka shaqeeyay. maxay markaa iska kaashan karaan imika tusaale ahaan oo kale Somaliland iyo Soomaaliya? hadda waxa ka mid ah dagaal baa ka socda koonfurta Soomaaliya lagula jiro Al-Shabaab. dagaalkaasi waa dagaal aad u khataraysan waa dagaal saameyntiisa gobolka ku leh Ethiopia ku leh Somaliland ku leh Djibouti ku leh inaguna de kaabigan ku hayna dagaalkaasi soo eekaanayo iyo qaabku u socdo iyo siduu ku dhamaan doono iyo cawaaqibka ka dhalan doona inay Somaliland isha ku hayso la iskana kaashado oo xagga amniga maaragtay la wadaaga aan waxaan u arkayaa muhiim waana u malaynayaa in arrimaha caynkaas ay kulli madaxda ka wada hadlaan. waxa kamid ah in la ixtiraamo oo Somaliland lagu ixtiraamo dalkeeda Soomaaliya lagu ixtiraamo dalkeeda taasna loo rogo wada hadalkii marka wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya waxa laga yaabaa inuu maalin kale ka hadli doona laakiin waxa laga yaabaa inuu sidii hore si ka duwan oo iminka u bilaamo oo uu sameysmo iyo in luqadii adkeeda lagu hadli jirin hoos loo dhigo oo iminka taasi way muuqataaba sanadkii u dambeeyay Xasan Sheekh Soomaaliya joogay language-ka siyaasadeed ama تعليق سياسي ku hadlayna aad buu uga duwanaa kuwii ka horeeyay isaguna saasi mid lamid ah marka waxa u muuqataa in xagga amniga iyo xagga dhaqaalaha iyo waxyaabo badan la iska kaashan doono aragtida lagu kala duwan yahay ah Jamhuuriyadda Somaliland dal madax banaana iyo iyaguna ay aragtida taa ka duwan qabaana waxaan u arkayaa inaan xilligan la xalin karin waqti ay qaadanayso laakiin si isfaham laga yeelan karayo mustaqbalka hadda ugu dambeyn waxaan si kooban uga hadlaynay wadamada ay Somaliland dareynayso ama xiriir kala leedahay marka Taiwan baa kamid ah oo xiriir la sameysay. Taiwan maxay ka faa'iiday Somaliland ayaad leedahay maxayse anu waxaan isleeyahay khaladka ugu weyn ay Somaliland sameysay intii ay jirtay taariikhdeeda gaar ahaan siyaasadeeda arrimaha dibadda waa xiriirka ay la leedahay Taiwan waan u arkay inuu amniga Somaliland khatar ku yahay. xiriirkaasi ma arkayno ilaa imika intii joogeen wax arrimo dhaqaale ah oo ay dalkii ka qabteen. Taiwan hadda waa dadku inay fahmaan Taiwan waa dal weyn ma aha hadda inagoo kale. Taiwan dhaqaalaheedu uu ka badan yahay ka Turkiga dhaqaalaheedu way ka awood badan tahay ka Turkiga way ka dhaqaale badan tahay Turkiga oo Sacuudiga ka dhaqaale badan oo wadamo badan oo inagu aynu aqoonsanahay wadamo waaweyn bay Taiwan ka weynta awood ahaan militariga iyo dhaqaale ahaanba laakiinse wax inaga inagu soo kordhisay oo aan ahayn nacayb China ah maynu arag markaan waxaan aaminsanahay in dadka qaar waxay yiraahdaan Taiwan waxay naga caawisay xiriirka Somaliland iyo Mareykanka anu ma aaminsani xiriirka Somaliland iyo Mareykanka waa mid toos ah waana mid aanay Taiwan shaqo ku lahayn waa mid Mareykanku ay doonayaan oo danahooda ay arkayaan laakiinse ma aha mid dalna dal kale dantiisa ma tilmaamo laakiinse waxa laga yaabaa in reer galbeedku ay interest ay ka leeyihiin ama danaha ay ka leeyihiin Taiwan ay ahayd in Taiwan Somaliland heshiis macnaheedu siyaasadeed ama diblomaasi la isla galo si halkan loogu celiyo China imaado marka Taiwan halkan waxay u joogtaa inay China ka celiso oo marnaba China iyo Somaliland xiriir sameeyeen taasina oo way socotaa wayna shaqaysaa marka laakiinse inagu su'aashu waxa weey maxaynu ka faa'iido anu waxaan arkay inay wax laga faa'iido inay wadan weyn oo Security Council-ka ku jira oo maaragtay mustaqbalkana aad xiriir la yeelan karayso ayuunba colaad inoo gelis laakiinse
dhaqaalaheennina waxba kamay bedelin waxna kumay soo kordhin oo dee haddii warshado iyo waxyaaba badan la keeni lahaa way runtii waxay noqon lahayd wax weyn oo macnihii waxaan ka wadaa riskiga ama khatartanu qaadanay iyo khatartaynu qaadanay wixii ay dhashay ay aad u kala weyn waxay dhashayna waxay noqday wax aad u yidhiita khatartaynu qaadanay aad bay u badan tahay marka risk iyo reward analysis baa la dhahaa marka riskiguna waa hay oo khatartina aad bay u dheertahay u badan tahay wixii aad ka heshay manfaci aad ka heshayna aad buu yari marka su'aasheedu isweydiinaya waxa weeye maxaad u qaadanaysaa shay khatartiisuna badan tahay manfaciisuna uu yaryahay taana weli maan arag cid ka jawaabta aragtida laakiin se anu daraasad baan ka sameeyey paper baan ka qoray waa published waxay ku jirtaa internetka oo la akhriyi karaya si qiimeysan oo maaragtay dhexdhexaad aan u eegay anoo arkayo ka duulaya interestka Somaliland iyo waxay doonaysaa Somaliland waxay doonaysaa dunida oo Somaliland ictiraafto China waa dalka labaad ee dunida ugu weyn sabab ay loola culoobaana meesha ma taalo aad iyo aad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax gudoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka Somaliland oo waraysigaasi kooban aanu kaga qaadanay magaalada Hargeysa aad bad gudoomiye mahadsan tahay